Soomaalida ku nool dalka Yemen oo in badan oo kamid ah qaxootinimo ku joogay dalkaasi ayaa saameyn xoogan kala kulmay dagaalada ka soconaya dalka Yemen waxaana xilligan ay danta ku kaliftay inay dib ugu soo laabtaan gudaha dalka Soomaaliya saacadihii ugu dambeeyay waxa dekedda magaalada Boosaaso ka soo degay dad tiradoodu kor u dhaafayso 250 ruux oo Soomaali ah kuwaas oo isugu jira haween caruur iyo rag مسؤوليته قبل كي دقمدا بربرة ومهلية ماريها دكدا بربرة أيام أنت دكدا بربرة كسر ويدوس داين كبد الله بقول إلا بتنقف وقحونتية أو كسر كعدة قال هذا كذا عيد الكاسي يمن مسؤوليته قبل كي دقمدا بربرة عيد الكاسي سوى يلقصوا دكدا بربرة وحنا الشيء يعني دكاسي لدتين دونه ملكم ملكار الله قلت لك دكا قحونتية كسر قحية قال هذا كقرحي دكا إنه شارك النهاية يمن qaar kamid ah qoysaska ka soo cararay dagaalada ka soconaya dalka Yemen ayaa telefishinka Universal uga waramay saameynta ay dadka Soomaaliyeed kala kulmeen dagaalada ka soconaya dalkaasi xaaladda Yemen aan ku sugnaan waa dhimasho iyo nolol waan iska joognay madfici diyaaradii lagu soo tuureysay waxaan ka galeynay meel geed ah ilaa aan ka soo orodno aan ka imaano meeshaan mukallada si gaar ah waxa uu imtixaan reeb Boosaaso wax badan waa samaysay raashin baad keenteen dadkii badanka waa dhoofiseen dadka badanna waa soo socdaan hadda hoolka sala ii sheegay ilaa kun baa ku jira waana ku soo wareegnay ilaa 4000 iyo googo na waa maaragtay waa la safriyay dad badan baa ka qayb qaatay tujaarta ku jirta dadweynaha ku jira hay'ado waxbay kaga jiraan ha meermeeriyaan dadka laakiin waxbay kaga jiraan waxa weeye hay'adda ugu fiican oo horseedka ka ana وقالس أو دعيرنا صدح بقول بيبلغنا الري غالس dadkan iga dambeeya way rafaadsan yihiin reer Boosaaso xoolihiina haddaan idin bixinin oo dadkaa meesha idinka dareer wallaahi billaahi inaad idinku nabadgelin maga reer Boosaaso dadka haddaad ninka dareerinin meesha oo din si degdega u dhoofin mar waxaad haysataan mukayafaad ku jirtaan wallaahi billaahi tsunami baad halis u tihiin oo tijaaradiina halis waxay inay badda degto oo dab inay qabsado haddaad si degdega dadka meesha uga saarin gobolada soo hadhay oo Puntland idinkana xil gaar ah in saaran
intaasi waxay ahayd usbuucyadii hore. Arbacadii aynu soo dhaafnay hadda ee 27 bishan May waxaa Boosaaso ka soo degay doon weyn oo ay saarnaayeen 2413 qofi. dhowr saac kadib waxaa iyana soo xiratay mid waday 450. حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل